iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay ku soo qulqulayeen xaruntan deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga qurbajoogta u dhalatay dawladda deegaanka Soomaaliya iyagu markaas ku dhaqan daafaha caalamka isla markaana soo dhaweynta loogu sameeyay garoonka caalamiga ee diyaaradaha magaalada Jigjiga wufuudda kala duwan ee qurbajoogta u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida ee iyagu markaas ka kala imanaya dacallada dunida ayaa haddaba waxa soo gaaray xaruntan deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga qurbajoogta u dhalatay deegaanka Soomaalida oo ka kala yimid wadamada Mareykanka Ingiriiska Australia iyo Denmark haddaba qurbajoogtani ayaa markii ay ka soo dageen garoonka caalamiga ee diyaaradaha magaalada Jigjiga ee Garaadwiilwaal waxaana halkaas xubnaha qurbajoogta si weyn ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen maareeyaha wakaaladda jidadka dawladda deegaanka Soomaalida mas'uuliyiinta gobolada Qorraxay iyo Jarar maareeyaha ku-xigeenka wakaaladda xiriirka arrimaha qurbajoogta dawladda deegaanka Soomaalida ahna kusimaha maareeyaha wakaaladda xiriirka arrimaha qurbajoogta qaar kamid ah qurbajoogta u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida ee jaaliyadaha Australia iyo Denmark ee iyagu markaas ku sugnaa xaruntan deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga soo dhaweynta wafdigan kadib ayaa waxa ay nooga warbixiyeen mas'uuliyiintii ka socday gobolada Jarar Qorraxay iyo sidoo kale maareeyaha wakaaladda jidadka dawladda deegaanka Soomaalida soo dhaweyntan diiran ay u sameeyeen xubnahan qurbajoogta ah ee soo gaaray xaruntan deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo ay mas'uuliyiintani tilmaameen in ay ku faraxsan yihiin in ay ku soo dhaweeyaan xubnahan qurbajoogta ah ee markaas iyagu ka kala yimid wadamada Mareykanka Ingiriiska Australia iyo sidoo kale wadanka Denmark in ay si kaliya laaba ugu soo dhaweeyaan deegaankooda hooyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno maalmahanba iyo dadwaatankanba qurbajoogtii ka imaanaysay daafaha caalamka si ay uga qayb galaan shirkan ka bilaami doona magaaladan Jigjiga oo socon doona ilaa 7 casho marka waxaan aad ugu faraxsanahay in aan soo dhaweyno hadda maanta qurbajoogtan ka timid wadamada Mareykanka Denmark Australia iyo Ingiriiska marka waxaan leenahay soo dhawaadano leenahay qurbajoogta ka timid daafaha adduunka oo dhan iyo kuwan maanta aan soo dhaweynay dalalka Amerika iyo Denmark iyo Australia iyo Ingiriiska ka yimid kaalayaan leenahay wadankiina welcome wadankiina nabad ah insha Allah waxyaabaha hadda aad ka arki doontaan shirkan hadda ay noqon doonto wax badan oo qurbajoogta maqan xataa iyo kuwa aragtida xun xataa wax ka bedeli doona insha Allah dhammaan qurbajoogta ka timaaday daafaha caalamka ay noqoto Australia ay noqoto North America dhammaan si wanaagsan oo laab kalgacayl ku dhahantahay ku soo dhaweynaa waxaan ilaahay ku soo dhawaada deegaankiina ka hana qaaday horumar ballaaran nabadgelyo iyo maamul suban sidoo kale dhankooda wafdigan qurbajoogta u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida ee ka kala yimid wadamada Mareykanka Ingiriiska Australia iyo Denmark ayaa waxa halkaas ku soo dhaweeyay qaar kamid ah qurbajoogta u dhalatay deegaanka Soomaalida ee jaaliyadaha Australia iyo Denmark ee iyagu markaas ku sugnaa xaruntan deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga si ay markaas ugu muujiyaan dareenkooda farxadeed uguna soo dhaweeyaan dhulkooda hooyo xubnahan qurbajoogta ah ee ka kala yimid wadamada Mareykanka Ingiriiska Australia iyo wadanka Denmark maanta meeshan isugu keenay garoonkan airport international Wiilwaal iyadoo ay ka soo degeen anuna maalintii hore ka soo degay anigoo wafdi hogaaminayo Australia maantana wafdi kale oo Australia ku soo dhaweynaya garoonka international Wiilwaal waxaan mahad u celinayaa ilaaha meeshan inagu kulmiyay sidoo kale dhankooda ayaa waxa ay ka warbixiyeen xubnahan qurbajoogta ah ee iyagu markaas ka kala yimid wadamada Mareykanka Ingiriiska Australia iyo Denmark sida ay ugu soo bohliyoobeen deegaankooda hooyo oo in badan ka maqnaayeen isla markaana waxay u mahad celiyeen xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee iyadu markaas mashaariicaha horumarineed u hirgelisay bulshadeeda kadibna waxa ay ka warbixiyeen imaatinka ay yimaadeen xaruntan deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga in ay ka dambeysay martiqaad ay ka heleen xukuumadda deegaanka Soomaalida si markaas ay uga soo qayb galaan shirweynaha toddobaadka qurbajoogta ee markaas lagu qabanaya xaruntan deegaanka ee magaalada Jigjiga marka u horeysa waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin wadankaygii haduu Ilaahay ugu soo celiyay oo waliba wadankan oo si aan ka tagay aniga maanta ay magaalo madaxda Jigjiga ay sidan tahay oo garoonku uu yahay garoonkii la dhigay Wiilwaal ku magacawnaa meeshan oo geedo iyo ruwaa iyo dawca fadhiyaan ogaa horta waxaan mahad u celinayaa markaan Ilaahay u celiyo marka labaad xukuumadda waxaan inii soo jeedinayaa hambalyo iyo wanaag iyo sida aad inigu wadanka aad u hormariseen magacaygu waa Dhuux Cabdi Cumar gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Itoobiya Denmark waxa maanta farxad weyn iyo runtii in ay dawlad deegaanadkeena waxa weey sida qiimaha iyo farxadda ay noogu soo dhaweysay maanta airportkeena ay noogu Jigjigo international Garaadwiilwaal international airport ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay farxad weyn bayna noo tahay inaan adduunka daafiisa ka nimid magacaygu waa Farxiye Bedel Cumar
waxaan ka imid waddanka Australia waxaan ahay gudoomiyaha dumarka ee dawladda deegaanka DDSI Soomaalida Itoobiya